ciilay urkuunka bukee intuu baalyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadid ka joogtay jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay hadduu ku asiibay intaadid ka joogtay jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinu intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee intuu boolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadid ka joogtay jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay hadduu ku asiibay intaadid ka joogtay jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu aragaagu astaan u ahaaday ishiinu walaal siimaayey arooskaaga 2 cishaa ka hadhay walaasha almina weli ma iman aabina wuxuu nagu yidhi iska daaya waxba ha dhibinine aabba wuxuu igu yidhi inantiin waa mashquul had iyo goor waxaa loo baahan yahay inaynu sugno ilaa inta imanayso markaa wakhtiga iyadu jeceshahay ayaa timaado waxba qasbi mayno waynu iska sugaynaa iyada run ahaantiinay haale almi way jeclad inay noo timaado laakiin waxbaa meesha ku jira wallaahi run ahaantii amba wax ma fahmayo meermeershaday walaashay gashay waa run wallaahi waxbaa meesha ku jira anigu waxaan la yaabanahay dhaqankan aynu leenahay hablu marka gurigooda laga guursado dib uguma soo noqdaan inantu markii sidaa u guursato waa inay nolosha ninkeedoo keliya ka shaqaysaa way iska ilaabaysaa nolosheedii hore oo dhan siimay walaalo waxba gurka ha ka baqan markaad guursato wax mushkilada la kulmi mayso markaa gurka adigu waxba ha ka baqan waxaad ka warwartaa yaani jirin waan yaabanahay run ahaantii nolosha gurkum sidaasaa iyadu waxay la kulmi doonana ma ogaanu mardhow ma garan karo anigu waxaan hadhow la kulmi doono tolum sida walaashay baan noqon doonaa mise waan ka duwanaan doonaa waxba ha ka xumaan adigu walaashay adigaba dhowaan waa lagu guursan doonaa noloshaaduna aad bay u wanaagsanaan doontaa waxaana soo garaacay seedigeen waxaa laga yaabaa inay almiinoo soo socoto hay ka qabo dhaqso ka qabo halo walaal siima sarbaab ayaa kula hadlaya waan ku maqlayaa walaal ma wanaagsan tahay iiga waran xaafadda iyo dhammaan aad bay u fiican yihiin laakiin maalmahan dambaad moodaysaa inay alma in yar iska yara xanuunsatay laakiin hadda marxaladeeda caafimaad sidii hore way ka fiican tahay walaal maxaa ku dhacay alma caafimaadkeedu iyadu ma wanaagsan yahay iiga waran walaal sidee u bugtaa iyadu may isdaji wax dhibaato lamaysa soo gaarin way fiican tahay laakiin wax yar dabaqaad yar ayaa soo gaadhay laakiin hadda caafimaadkeeda aad buu u fiican yahay marka la socda idinkuna waayahay walaalo waan u tegi doonaa labadeedaba waanu ka warhaynaynaa iyada laakiin waxaan u baahanahay inaad noo ogolaato inay muddo 2 cishaa nala joogto waayo waa maalmihii arooskayga walaalo waan ku baryayaa walaal adigoo raalliya noo ogolow inay noo timaado waa si wanaagsan laakiin xaqiiqatan aniga amarkaa ma lihi walaal maxaa yeelay guriga faamiliyaa jooga hooyaa joogto ayagaan ka amar qaadanayna waayahay walaalo waa hagaag nabadgelyo walaalo okay waay insha allah khayr badan aan ku rajaynaya siima maxaa dhacay nihaaye adiga iyo anigu waxaanu noqona dhowaan habaryar baynu noqonaynaa waan ku faraxsanahay runaantii arrinkaa waan ku faraxsanahay aad baynu faraxsanahay maasha allah habar baynu noqonaynaa iga war xaalkeeda waa sidayada caafimaadkeedu say tahay iga war xanuunsanaysa haddana imika alxamdulilah aad bay wanaagsan tahay eegin adeer halkana shaqada ka bilaabaysaa halkana waad ku dhammaynaysaa wixii maanta kuu soo galo unbaad qoraysaa wax kale ma qoraysaa hata
waa kaada shaqada waa la qabsan doonta insha allah waqti un bay u baahan tahay marka markasta wixii cusubnay weydii aniga inaad wax yar dahabaad horta xakaad ku qarsanayd magaalada waxaan ku gabar saadaasoo kale waa laga laayiyo qofka si wacan baad wax ugu sharaxaysa uu fahmayaaba fahamkaaga qaaliya niyo waa dadaalaysaa laakiin in yar sir yar ma kuu sheegaa halkan shaqadu inaad yaro badan tahay laakiin hadalkana aamusnuun baa lagu soo gala aamusnuun baa lagu inaad la kaftamaysan oo istaarugiye ma inaad kulama kaftamaya shaqadu anagaa u baahan shaqaduna iyaduna ma baahnaa markaas ka shaqayso ban ku leeyahay shaqadu yara adag tahay marka hore marka dad wax u baahan tahay aniga ila soo si wacan waa macsantahay walaa adiga mudan iska shaqayso cabdi waay dahab weeye wax yaree iskada caarif aanay aqoon u lahayn markaan isbaro iyada dan u yaabay baan ku yiri iskeed bay u hadhay maya haddaad xalsanaysiina maxaad ninkaaga buuq la doonanaysaa xaajigaagu ku soo shaqaynaya maalin iyo habeen isagiiba ku soo daalay adiga dartaa marka ina dawaqsimay tahay aroorta buuq baad lana imaanaysaa gabadha waa xaaladda wax kale maaha de maxaad kala garanaysaa lax baa tahay arooraha hore marka la yaro dawaqday ama madaxu ku yaro xaruuno ina waa lagu qabaayo iskala garade oo dhakhtarada isaga soobso ina ninkaagaba dawaqanaysa miskiinkayga yaraayo aan dhalayna bilaa quraac musaaka ku baxay shaqadii almaay inantaydayay soo bax si soo baxa dadka meesha السلام عليكم هذا قدرت الناس دي وعليكم السلام يا رتم عند حبوب يا بصلوا السلام عليكم الناس وعليكم السلام والله هي ما خضرت بدنوك تولد هو يتلاقي كل غير كان يصير مركز هذا غير كو تجيسو يا خضار الله قاعد سيدتي لدك حالتين ما وناكسنتين اصل سوما وعشدي هراء نوتمي وحبونا ما تكيرين من العقل عبك وزين هذا ما يمكن بدنوك هنسا نور شير بدنوتمي ما العقل انا مش تبيرها ابار صدى ابار بيه انا طلعوا انت هيدي ماذا أبو 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 هذا قلبي قاعد قشع وكم مقطع ما قرح بالندى محاكا أبو الكاسة دي قصور رح تورتي يا لكن ما صوتون راح حشيش اللي متى قبر باتحل قبل عندها تكتاك سوا حاب ما عادي أهين حالة تذكر الدكانين سرع سنين أبو حربا ولا شيء ناكالا أبا ما حد ورور كورسات قلنسا أركب شاحة وكان بسم الله الرحمن الرحيم نكا قلنا مدبو إيمانا يا أرد هؤلاء دمستر ما يولا الشاحة ما تشري واحد دوني هنا قبلك حيو نتن يرناك حيو وحافظ يدي رجيو يا صوت عروس باتشريو يا نادل حماسي يا دي maxaa tiri alman kaxaysanaya aroos baa jiray xaafadeeda walaasheed baa la guursanay markaa waxa sinay dhaqan ahaan kaxeeya inta walaasheed la faraxdo maalinta joogana ha soo bedelto say kula tahay adiga inaad ma kaxeeya deeta yar waa caadi anaguna war wax la kaxaysanay ma jirtade alma waa xaamila dhaqan iyo caado waxaan u leenahay gabadhu markay xaamilo tahay inay guriga ka bixin oo aroos iyo xaflad iyo xinaya baqbaqdan iyo waxaanayna maqli weeyaa sababtoo ilmaha yarba xaalad adag gelaya ma ogtahay dhaqanka marka bisha saddexaad insha Allah markay gasho hayara baxdo waa sida weeyaan inaad arday ilmaha ilkaha lagu sida caloosha lagu siday gabadha hadii ilkaha sare ku sidun bay ilmaha wax noqonaya ay waa caloosh marka xishooda dad islaaman anagu dhaqan baan leenahay waa in gabadha la kaxeeyo xoogaa quraan baan soo saari lahayn xataa ayo gabadha waa loo soo ducayn lahaa laakiin adigoo yar qalabsantay intii ma anagu inta dhal ma intaydii ahayn waa idin sideed walaal ma waalanti waxa way meesha xilbinu kala badan sheekada waa la soo dhaafay imikana waa shaqo dumar baa aad u garanaysaa anaguna dad islaaman ay ilaahay ka baqalana maada naga ogde maxaa ka garaado mid kale alma kaxisay meeside okaade هذا وريا واد مغلسا inantani guriga laga bilaabay ka shaqeynaysa guriga waan ka soo guursanay maxaa dana soo kale mid kale mas'uul weeyaan ninkaygu maqan yahay ma ogola anaguna ma ogolin hadii tagtay imka guriga yaa ka mas'uul anagu ma dhalna nu weynahayn oo idin soo guurno idin soo siinin waan inantayda ahayn marka ma mas'uuliyadda qaadi karin boqol kalaan haya mas'uuliyadda tayar maxay u kaadiya adar gabadhaada wad ka xiisan kartaa xaqna waad u leedahay cid ka hor istaagi kartaa ma jirto maanta wad ka xiisanaysaa kaxisa gabadhaada ha sax way adaa aniga ayaa ku fasaxo ninkeeda Allah ma inanteeda lay bariyaa xaq baad u leedahay inaad kaxistaa adar ha waay ahaynaya abaryaa shalmad madow baa lay bariyaa inanteeda inaad kaxista ka war adduunya yaa ila adeer kaale isdejiye idinku anaa la soo hadlay wax walba soo fahamsan waay adeer adigu ducaysantahay waa maasantahay taas waa baay lagu seefal subhanallah astaghfirullah ala reedo ina teerna maxay diyaar dhalay baasha reedad
reerkuuna iska daa ha haddii asaan inaan soo siisanay ka hor kaasaan yaaraday gabaadtii ka qaadana fadhiisa hooyo lama baahno waxaan oo kale maxaa yeelay ninkan gabadha isagaa dhalay xaqna uu leeyahay uu kaxaysan karaa aniga maadaama gabadha qabo adigana hooyaday tahay dee ummaddeeda karista waa qalad hooyo adiga dhaqanka wanaagsan isoo baray miyaa maantana dhahaya waxaan oo kale ha samayn hooyo ceeb weyaan marka min fadlan tan labaad gurigooda aroos baa ka jira xaq bay u leeyihin inay walaalooda isoo arkaan ay soo booqdaan marka min fadlan hooyo naga daa ninkan waa nin weyn ood ogta maalintan gabadha kasoo kaxisana si yaroo sharaf ayuu noo soo siiyey marka hooyo shadaanka iska narno isdaji oo markaana hadduu dhalayna ma anagu marka maalin kasta la dul taagnaanaya midda kale yaa kuuri gabadhaada horbood hadalkayga seed waryaa u diida maad oganayna naarta lagu galo hooyada dadka hooyo isdaji aniga hadalkaaga ma diidane laakiin qofku weyn hadalkiisa in la maqlo waajib wey tan labaad anaga dadkan haddaan gabadhiidna weyna qalad bay naga fahmayaan marka waa ku baryaa isdaji hooyo dadkan xaq bay u leeyihiin waxaan oo kale haddii gabadhaadu ma boqoradba marka habeeniya maalin wixii doonaysa sariirta jifto waxba qabanin hawna qaban hooyada anaa raxda ka jifto habeeniya maalin shaqayso iyadana kolbo aad ba walaashay baan u tegay videos maalin kasta annagana dabuuqiso ma hablaha kale ma ka duwan tahay naagaa kale la gursaso guryooga fadhiyaan iyada maxaa la warwareegaysaa la meersanaysa warniyo annaga waxaan la imanin hooyo ifaan waa arrinkaad ka hadlaysa iyo kanaan ka hadlays ma laha odayga aabi gabadhiisa ha ka haysto iska daa hooyo haa waxaan kale way iska hagaagayaan marka dambe marka isdaji hooyo xaq bay u leeyahay ninkan uu gabadhiisa ka haysto loomana diidi karo waxaasoo kale waa nagu ceeb marka inta laynagu sheekaysan lahaa iska daa hooyo waa runtii iska daa aabeed ha raacdee iyadoo arooskii walaalkeed ayaa jira hooyo inaan dhibno maaha way iska fasax anaga aamus aduguna shad ahaa marka hooyo naga ogola waayahay ha tagto laakiin 2 cishuna hala joogto wax kale anagu ma ogolaanay mar dambe midda kale sarbaabo kaama ogolaanay mar dambe inaan naagtaada horboodi hadalkaygu baa soconaya waryaa meesha waabad kibirtayba waa ku siiyadaaba ku bartayda maxamada sodiga iga fooraysi jire midda kale jannada hooyada baad ku gelisay naagtaada kuma gelisiye inay naarta ku gelin saadu socotiboo halaabsan malaynay way hooy amarkaaga jira sad jacashan sameynaya sidii hore ku soo noqonay foorarkii way marxaba xanalashan adduunyadu waa iska sidaasoo dadkana waa iska joogjoogaan bini aadankan bale qor wax walba waad arkaysaa waxyaabaha soo kor adigoo doonayn wax xunad aragto ayaad haddana arkaysa hablahaa yarar hooyadin markay rawaxday dhimatay waxaan isiri naag kaleba ha guursanin ilay gabadhii rawaxdaya waxaan isiri haddaad naag kale u keento intay madaxa ka garaacday habluhuba iyo rifani lisan kaaga dhiciyo dabeedna halkaasi wax yaroo dhudhukuroon oo madmadow noqon waan iska daayay oo noloshii halkaasaan ku ilow hablahaaga koriyun baan islo idin koriye oo idinkaa waxa yaree wada quruxda badan noqday maasha allah tabaaraka allah laakiin dee waxaan islahaa adduunyada marka hablaha guursadaan sodohaha ay tagaan baa u fiicnaan doono oo hagaajin doono oo ilaalin doono oo jacayl iyo wax walba tusi doono laakiin maxay kugu taalaatay bahal yaroo qumayaasoo maanta uma tegin sodohona may ahayna qumayay ahayna oo nooca laga subxaanalaysto ilaa inanteeda igu qabsatay show inantaba god baan ku riday ninna maa siinna bahal qumayaan isna siiyo qumaya dhashay astaqfirullahi aabbo sidaas oo odhanin aniga wixii ii qornaabaa igu dhacay adigu si fiican baad noo korisay aabbo meel xunaaba aniga haddaad geysay maad ogeyn waayo waxaad isleed inantaada meel fiican gee aabba adigaa hooyaya aabbaba noo noqday markaas sidaa ha noo odhanin sax weeye laakiin waxaa islahaa hablo waa hagaagi doonaan oo nolol fiican bay heli doonaan dhib ma leh iska adduunyada iska murugada iyo fiyoolintaas iyo laxamadaasi marmaraan hawade waxaa la yidhi walle nin adduunyo noolow maxaa aragtay kuu laaban marka waxa weeyaan insha allah khayrkii tegiyo khayrkii tegaysa maadaama hablihiina koreen waxba maaha ninkaagan adigu baa wax bari karo oo dabeecadaada wanaagsan iyo samirkaaga iyo dulqaadkaaga markaad ku haysidna wuu iska hagaagi doonaayo ubadka caloosha ku jira kaasaad ku farxi doonta isagaa farxad kuu noqon doono wixii kaalumayna kuu soo celin doonaa islaanta yaree qumayadaan dhib male waa sodohdaa iskala joogo sodohda waxba maaha aabbo adigu waan ku baryaha werwerin aniga oohintaada way dhibaysaa
waan iskala qabsan doonaa aabba dadkan aniga wax kasta waxba maaha aabbo adiga dartaa baan ugu dul qaadanayaa waayo adigu maad ogeyn dadkan inaysaan ii gelayaan nasiibkaygay noqotay aabbo inaan dadkaas anigu gursado waxba maaha qaayada caloosha ku jira insha allah farxadaadii oo dhan soo celi doona iyo farxadda reerkana sutida intuu qabto dadka hagaajin doona laakiin dhib ma leh adduunyada iska noocaas waa la iska samraaya talo bila kuwa kalena god ay ku dhacaan iyaguna saas oo kale ah igada labadaa kalaan sila god bay ku dhacay iyagana waxba maaha laakiin aabbo adigu waxaa tahay aabbaha adduunka ugu qaalisan hablahaaguna ducadaada ayay meeroon ku wada marayaan aabbo anaga waxba nama gaadhayaan adigu laakiin niyadaada khayr u sheeg insha allah anagu waan faraxsannahay mar haddaad adiguba aabbahay tahay wax naga maqan ma jiro marka aabbo waan ku baryayaa ha warwarin walaashay iyagu waa run qiimahaaga ma garanayaan laakiin waxaan ballan ku qaadayaa inaanu kaaga soo argoyn doono khayr u sheeg walaal niyadda ha warwarin walaalo oo hintana iska dhaaf iga soo argo waxaan iga soo argo waa iga qabaa wanaagsan baa tahay adigu walaalo ha ooyin walaalo way isku daran isku darantay runtii aabbo waxba maaha oo laga bixi iska yaala laakiin waxba adinku anaa qorshaydin haya qorshe wanaagsan oo hagaagsan insha allah lacag badanna waa idin shaqeeyay beere mid walba lacag buu iga qaadaa markaas haddana dhow habar yaro qumay ah isagoo wata hooyadii waxba maaha laakiin waan burin doonaa way waa ducaysantahay horta kaale meeshan ma tano fiilin baan ku jirnaa iyo oohin iyo baroor iyo naga saara waxan wallahi inta oohin baan ku soo dhaweyn namariya meeshan hala isagaajiyo deynta aniguna macaankii baan doonay idinku waxaad keenaysan inta shaah yar iyo caano iyo wax isugu daro meel baa caloosha ku jiray marka caloosha ka soo baxana soo idin karto habriirihii ana awga hawa ka sala hagaajiyo inta soo dhaweeyay waa nabadgelyaha waa soo noqonay talo waxaan ku dhacaya waa maxay aniga dhibaatadan aan marayo dhan run ahaantii waan la yaabanahay kaadhka talo alma miyaanu geeyaa mise waan iska daayaa waxaan sameeya garmaayo haay ma soo gali kara inaabte iska soo gal haye maxaa sameynaysaa waxba ma samaynayaa dee waxaan aroosadii baad qoraysa soomaa kaararkii saa darteed baanu yimi maad iraaci kartaa iska soo yara meerasanna ma ogta dad cusub baanu naha waxaan doonayna si fiican isku baranay ma haleeliye kaararka walaal aan qaybinaya anu kuma raaci karo maxay markaana kuma raaci karo dee waayo kaararka ayaan qaybinaya anigu dee markaa mashquul baan waa si fiican adduunyada waan ka yaabay dadku markay isguursanayaan siiban raggu markay jecel yihiin inay guursadaan wax kasta way sameeyaan mar kasta guurka farxaddiisay ka taliyaan markaana dee marka waxaad u baahan tahay inaa dhakhtarka lagu geeyo kawaalada de ina caadad ma tiide on kala kaftebe raan noqo haye ma dii sheekata shaqada muhiimkeeda hayse waa maxay han ku caawiya de haddaad doonaysa kaararkan kula qaybiya maya aniga keligii baa qaybinaya laba baahan oo maxaa ka macnaa de shaqada waan kula qabanaya waa iska caadi sadad walaalaan ma nihin hadhowna waan isguursanaya xaaskaagii baan noqonaya waa iska caadi markayna kaarka wala qaybino ilaa imika lama hubo inaa xaaskayga de hawan ku raacaya de maxaa ka macnaa beriba meherkeenu dhacaya maxaa kaa siinayo dabeecad xumada iska daa laba qof isku cusubo dadkaan ogaada in isjecelnahay waryahe hadda waan kaa xanaaqaya qof nool noqonayo ish marmar waan kaa xanaaqaaya dabeecad xumadaada waan ka yaaba hagaan ka bilowna shaqada oo kala almadani waa yaraamish alma waayo
cidna maaha وهدايا محاد كقرتي mararka qaar baan iska qorqoraan waxyaalo yaroo mana awaala markaasaan intaan googooyaan hawada raaciya haddana markaa waa intaasun wax kale maaha واو anigu waxaan jeclay inaan waxyaalaha qaar iska qorqorto marka hadhow aan ku caajisan aan googooyo oon tuuraba واو gawajada iyo waxaad ku hadashay waxaad u baahan tahay inaad iska noqoto fanaan iska noqotay naadir misaabwan saasa ku fiicane ama waxaan u maleynayaa inaad dhakhtar u baahan tihiin inaad dhakhtarka ku yara geeyo ama makawaalada ku geeya ama dee magaaladuba waa buhan iska noqo soo sida maaha waad bixi kartaan hooyo fasax ayaan idinka soo qaaday danihiina soo oofsada orda haadeer waa mahadsantahay walaashay hee walaal ku dhacay walaaleed kaliya la fadhidaad la murugaysan tahay walaal maaniga murugaysan haye waa farxadii walaasheene sideen u murugoon karaa walaal anigu ma murugoon karaa walaal murugo sideeya waxaasi ma jiraan muruga kaa muuqata adiga walaal maya walaal anigu waan faraxsanahay weliba arooska walaasheen waan ku faraxsanahay dhammaanteen inagu guriganaynu ku soo wada kornay farxadna aynu ku soo wada qaadanay waynu isla oynay oo waynu isla qosolnay oo weliba waynu isla faraxnay waynu isla ooyi jirnay marmar waynu iscaawin jirnay marmarna waynu isla ciyaari jirnay haddaynu doonno waynu wada murmi jirnay kabacdi adigii baa naga tegey aniguna waan ku xigaa sidaasaynu labadeenniiba guriga kaga tagay ilaahay baa og inaynu is arki doonno iyo in kale iyo inuu weliba saa u faraxsanaan doono mar labaad iyo inay saddexdeennuba mar labaad farxaddan oo kala heli doono walaal maxaad saa u leedahay adigu iminka waa lagu guursanayaa walaasheenna yarna waa la guursanayaa dhammaanteenba inagoo guryeelo carruura dhalan isku imana oon isla farxaynaa carruuraheennuna meel bay ku wada kori doonaan sinaba kuma kala fogaan doona walaal laakiin run ahaantii walaalo anigu aad baan u cabsanayaa walaal sabab ilmadaadan aad uga xumahay walaalo anigu waan baqanayaa run ahaantii walaal sidaa ha odhanin sidani ma dhacayso waa maxay labadiin halkanaad laabta iskaga jirtaan oo ooyeysaan qiirada looma baahnaa inaanu faraxno weeyaan waa maxay oohintani waa sidee dawaad ooyeysaani inaad faraxno aynu qosolno aynu jaasno oo ciyaarno weeyaan waa maxay sidani oohin looma baahna maanta waa maalin farxadeed qosol baynu u baahannahay waynu jaasaynaa waynu ciyaaraynaa tii heesaysa tii jaasaysa tii wax kala qabanaysa so sidaa maaha walaashay walaal waa runtaa haye walaal adigu walaashada naga weyn baa tahay inaad oydo looma baahna inaynu faraxno oynu qosolno weeyaan walaalo ma garatay iminkana aroos baa jira waynu tii heesaysaa iyo tii jaasaysaa anaa ugu hor bilaabayaa ma garatay sidaa ma aha waynu heesaynaa alalaas ka baxaya waa aroos waa aroos waa aroos alalaas ka baxaya waa aroos waa aroos boqolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee intuu boqolyowgu adduunka ku ciilay urkuunka bukee urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne urcaasha ku uumay afkuuna ka sheegin dadaalad ogeyne hadduu ku asiibay intaadi fa joogta jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay hadduu ku asiibay intaadi fa joogta jacayl ma la oyday runtii ma ilmaysay miyuu araggaagu astaanu ahaaday ishiinuguloo dhan miyuu araggaagu astaanu ahaaday ishiinuguloo dhan